لاعبka reer Brazil ee Neymar Jr ayaa ugu yaraan xusuus qorkiisa ku xariiqi doona in sida uu isula qaalisan yahay aan loola qabin marka ay timaado gudaha dalka Sacuudiga kadib markii lagula oriyay koobka tenniska ah ee loo yaqaano Six Kings Slam ee dalkaasi fiidnimadii Khamiistii. Jokerkan reer Brazil oo sanadii 2023 780 milyan oo ganiga sterling ah kaga tagay kooxda Paris Saint-Germain ee dalkaasi Faransiiska isaga oo ku biiray kooxda Al Hilal oo uu lacagta badan ka shubay sanduuqa ay leedahay dawladda Sacuudiga ee PIF Public Investment Fund ayaa waxa ku dhacday wixii ay reer xamarku dhihi jireen Khamiis baa la quustaa. لاعبكان oo horyaalka Sacuudiga ee Saudi Pro League ku jooga lacag dhan 26 milyan oo ganiga sterling ah oo uu sanadkii jeebka ku shubto kadib markii uu qandaraas 3 sanadood la saxday kooxdiisa Al Hilal sidoo kalena dabcan waxaan doodi ka taagnayn inuu kamid yahay xidigii ugu muuqa dheeraa kubadda cagta dunida 10 sanadood ee la soo dhaafay sida darteedna waxa uu fili karaa in uu noqdo laacib aad looga xushmeeyo dalka Saudi Arabia yeelkeeda taa cagsigeeda ayaa dhacday markii uu ka soo muuqday garoon lagu ciyaaro tenniska dheer oo ka tirsan tartanka Six Kings Slam waxaan Neymar markii uu soo galay garoonkan 8 kunqaadka ah ee loo yaqaano The Venue ee ku yaala magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudiga markiiba isqabsaday qaylo sawaxan iyo foori aan caadi ahayn oo isaga loola dan lahaa. dhanka kale kooxda Barcelona ayaa fasal ciyaareedkan waxa ay kulanka soo socda ee El Clasico ku ciyaari doontaa funaanad khaas ah oo ay ka muuqato astaanta bandada muusiga ee loo yaqaano Coldplay waxaana taa ugu wacan kooxda Barcelona oo qandaraas iyo dhaha kula jirta madasha muusiga lagu soo bandhigo ee reer Sweden ee loo yaqaano Spotify aana sida darteed ciyaartoyda Barcelona funaanadooda ku xayeysiin doonaan albumka cusub ee ay soo saartay kooxda Coldplay ee loo yaqaano Moon Music waliba xiriirka ka dhaxeeya kooxdan Coldplay iyo Barcelona waxa uu soo taxnaatan iyo 2008 markii ay Barcelona si aan rasmi ahayn u soo bandhigtay astaanta kooxdan ee Viva la Vida sanadkanna waxa magaca Coldplay uu ka soo muuqan doona funaanada Barcelona iyadoo lagu bedelayo Spotify marka ay fooda istaraan kooxda Real Madrid oo ay ku balansan yihiin gegada Bernabeu 16 bishan October haddii Bernabeu sii joognaan Real Madrid ayaa la sheegay inay si aad uga niyad jabsan tahay saxiixa لاعبka reer Francis ee Kylian Mbappé gaar ahaan marka ay timaado bandhiga xidigan caalamiga ah. Mbappé ayaa dood dheer oo ku saabsanayd kooxda uu ku biirayo soo afjaray ugu dambeyn xagaagii tagay markii uu la saxiixday kooxda Los Blancos isagoo ah laacib waliba xor ah oo ka yimid dhanka iyo kooxda PSG. hayeeshee aad uma xuma wax soo saarka laacibkan 25 jirka ah ee reer Francis oo 7 gool dhaliyay koob iyo 10 kulan balse waxa uu haatan sidoo kale wajahayaa dacwad kufsi ah oo kaga timid dhanka Sweden oo isaga oo saaxiibo wehliyaan booqday toddobaadkii tagay walow waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixino ay qoreen warqaadida reer Sweden ee Aftonbladet iyo markii dambe Expressen oo waliba ku daray in booliiska si rasmi ah loogu gudbiyay dacwo ka dhan ah laacibkan Mbappé oo loo haysto kufsi ka dhacay hotelka Bank Hotel oo ku yaala bartamaha Stockholm. Real Madrid runtii way ka shalaysay in ay soo iibsato taas aniga ayaa ku huba waxaana arinta kala hadlay iyaga waxayse ahayd in aan warka faafinin ayuu yiri wariyaha Romain Molina oo la hadlay Colin interview. dhanka kale kooxda Chelsea ayaa waxa ay doonaysaa inay astaan cusub ugu dabaaldegto sanad guuradeeda 120aad ee ka soo wareegtay markii kooxdan la aasaasay waxaana doonaysaa inay astaanteeda cusub ku soo darto wax muujinaya inay tahay naadiga dhabta ah ee magaalada London walow ay taageerayaasha kooxaha Arsenal, Tottenham, West Ham iyo qaar kale oo ka dhisan caasimadda Ingiriisku aanay aragtida ku qanacsanayn lana qabin. Chelsea ayaana doonaysaa in ay bandhiga samayso bisha Maarso. Dabcan Chelsea waxaa la aasaasay 10 Maarso 1905. kooxdan ka dhisan horyaalka Premier League ayaana waxay u gudbisay istuudiyaha lagu naqshadeeyo astaamaha ee loo yaqaano Uncommon Creative Studio si ay u keento astaan cusub oo uu ka muuqdo libaaxa buluugga ah ee kooxda astaanta u ah oo dul taagan xarfaha la soo gaabiyay ee LDN oo loola jeedo London. waxaana sidoo kale arji u gudbiyeen xafiiska shatiyada u jira magacyada iyo astaamaha sharikaadka ee loo yaqaano UK Intellectual Property Office kaasoo bishii Agoosto soo bandhigay qorshaha Chelsea iyadoo dhinacyada saddexaad la siiyay muddo 2 bilood ah oo ay ku diidaan haddii ay dacwo ka qabaan qaabka ay wax u wado kooxda Chelsea balse ilaa imika ma imanin cid ka hortimid aragtida kooxdan Premier League ee ka dhisan London khaasatan kooxaha kale ee ka jira magaalada London taasoo ka dhigan in astaanta cusub loo diiwaan gelin doono mid ay leedahay Chelsea Football Club Limited ugu yaraan 10 sanadood ee soo aadan. Chelsea ayaana hornaanba markii ay soo bandhigaysay funaanad gurigeeda
waxa ay ku qortay xarfaha lasoo gaabiyey ee CFCLDN oo loola jeedo Chelsea Football Club London. ugu dambeydin haddaanu kusoo afjarno qayb yar oo ku saabsan sheekooyinka kooban ee kubadda, waxaa maanta qayb yar noo haya Ruud van Nistelrooy, qanaaskii hore ee kooxaha Man United, Real Madrid iyo qaar kale. waxaanu yiri waxaan mar u ciyaarayay Man United, waxaana ka horjeednay kooxda AC Milan oo ah koox haysatay laacibiin ay ugu horeeyaan difaacyo halyeeye ah, Cafu, Maldini, Stam iyo Nesta. xataa kubaddii ayaan gabi ahaanba taaban kari waayo. kaaga darana waxaa kasii horeeya 4 ay ka mid yihiin Gattuso, kadib Pirlo iyo Seedorf oo ah ninka ugu xoogan ee aan abid ku arkay kubadda cagta. waxay ahayd habeen alwasaad ah. haddii aan daacad u hadlana waxaan filayay inay i dili doonaan haddii aan kubadda taabto. waxaan maqli karayay garaaca wadnahooda, halka wadnahayguna uu la garaacmaya cabsi darteed. waxay goolkooda u difaacanayeen sidii inay ahayd goob dagaal. qof kasta wuxuu diyaar u ahaa inuu iga celiyo inaan horay u socdo oo u baloogo shoot kasta oo aan hawaysto, ayuu hadalkiisa kusoo koobay Nistelrooy. Maxamed Xaaji, Hadal Same TV.